maanta waxaan soo booqannay tuulada Amal guriga quruxda badan ay ka dhisayso duuleedka magaalada Garowe maadaama aan qurba joogta ka ahay fariinta aan diray waxa weeye dadka qurba joogta ah hooygii ay ku soo noqon lahaayeen oo naftooda iyo ubadkooda ku badbaadin lahaayeen waxaan anu goob joog ka ahaa muslimiin badan ay meeshaas tagay laakiin caruurtoodii iyo kuwii awoowaha koowaad u ahaayeen iyo kuwii awoowaha labaad u ahaayeenba way isbedeleen marka inagu Soomaalidu maadaama ay waqti dambe tagtay ilaa dhowr iyo 30 sano ay joogaan talada aan siinayo waxa weeyaan inay soo guriyo noqdaan ubadkoodana badbaadiyaan naftoodana badbaadiyaan aragtida aan halkan ka qaban markaan soo meel badan soo aragnayna waa meeshii ay ku badbaadin lahaayeen dhaqan ahaan iyo diin ahaan iyaguna nolosha way fiican tahay qofku waa yeel markuu noqdo intiisa dambe inuu sii raaxaysto oo meel fiican ku noolaado waxaan qabaa guriyaha aan soo arkay qofku inay u dhaanto meel kastoo dunida joogo halkan kullayba guri haddaad dhisanayo guri haddaad gadanayso meesha ugu habboon aad guri ka dhisan lahayd guri ka gadan lahayd inay tahay tuuladan Amal ee Garowe duuleedkeeda ku taal